heegan buuxa ayaa la geliyay dhammaan ciidanka maamulka waqooyi bari iyo kuwa warsangale ee ku sugan tuulooyinka hoos yimaada magaalada Cerigaaba ee xarunta gobolka Sanaag saacad walba waxaa la filan karaa dagaal qaraar oo halkaasi ka dhaca ila wareedyo aan goor dhow la hadalnay ayaa waxay tilmaamayaan in saacadaha soo aadan laga cabsi qabo in dagaal halkaasi ay ka dhacaan waxaan kula wadaagayaa xogta wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan dhaqdhaqaaqyada halkaasi ka socda cidda gacan sarreysa iyo sidoo kale xaajooyinku halka ay hadda ku dambeyn karaan dabcan Ceergaaba iyo deegaanada hoos yimaada maalmahanba waan idin la wadaagaya inay jiraan culaysyo amni oo ka imaanaya darafyo kala duwan hadda waxaa la leeyahay xaaladdu sidii la moodayay waa iska bedeshay ciidamo tiro beel ah ayaa waxay buux dhaafiyeen meel walba oo ka mid ah gobolka Sanaag ilaa gobolka Sool xaajadu hadda waxay maraysaa meel aan waxba laga qaban karin Siciid Cabdullaahi Dani dhinaciisa wuxuu dareemayaa culaysyo uga imaanaya dhinaca bari waxaa ka imaanaya warar kale oo sheegaya in dadka gobolka bari ay tashanayaan shir weyn uu ka dhacayo magaalada Boosaaso xaajooyin kala duwan ayaa soo baxaya oo khilaafka Dani iyo sidoo kale ismada dhaqanka maamulka Puntland laakiin arinta Ceergaabaan ku hormaraya Ceergaaba xaaladeeda ama warka ka imaanaya waxay leeyihiin ciidanka waqooyi bari oo wata dabaabaadka iyo gaadiidka dagaalka oo aad u fara badan ayaa waxay buux dhaafiyeen banaanka magaalada Ceergaabo saacad walba waxay sugayaan amar ah in dagaalka la galo waana waqtigii ugu dambeysay oo dabcan ay dagaal ku gali karaan ciidanka maamulka waqooyi bari xogaha la helayo waxay tilmaamayaan in saacadba saacada ka dambaysa culaysyo ay dareemayaan ciidanka maamulka waqooyi bari taas oo keenaysa in dagaalka si dhaqso loo qaado laakiin firdhiyo wuxuu leeyahay haloo kaadiya bal caleema saarkay inta uu ka dhacayo marka kadib ayaan isbaran doonaa annaga iyo Puntland iyo Somaliland xogta wararkii ugu dambeysay waxay tilmaamaysaa in culeysyada halka ka imaanaya ay yihiin kuwa sareeya saacadba saacada ka dambeysana la arki karo culeysyo kale oo waaweyn oo dhinacyo kala duwan ka imaanaya Puntland markan iyadu waxay rabtaa inay Ceergaabo wax ka difaacdo laakiin ceebta ugu weyn halkaasi taala aan arki doono waxay noqon doontaa markii ay isfara saaraan ciidanka Puntland iyo ciidanka maamulka waqooyi bari yani maadaama daarood ay yihiin oo de harti ay ka tirsan yihiin waa xogaa laga qurux badan yahay laakiin hadii ay xaajadu gudu weydo xabada waa la iskula tagayaa Siciid Cabdullaahi Dani isagu wuu rabaaba in xabadu ay ka bilaabato afaafka hore Ceergaabo waliba xabada ugu horeysa ay dhexmarto ciidanka waqooyi bari iyo ciidanka Puntland laakiin garaadada oo aqligoodu uu saliim yahay oo wax badan oo waxay leeyihiin maya xaajada sidaas lama oran karo waa in xaajada dhinaca kale loo leexiyaa Siciid Cabdullaahi Dani damaciisa waalana waa in dib loo riixaa si uusan dadka deegaanka madaxa iskugu gelin isla markaana uu iskugu dirin waana qodob kale oo muhiim ah oo darafyadu ay markan si aad ugu kala qaybsan yihiin xaaladuna ay tagayso meel aan waxba laga qaban karin qobarada arrimaha la socota waxay leeyihiin Siciid Cabdullaahi Dani isaga ayaa ku fashilmi doona hadii uu duulaan weyn ku qaado gobolka Sanaag taasi oo aan la ogeyn halka ay meesha ay xaaladu ku biyashuman doonto iyo xaajadu halka ay tagi doonto waynu arki doonaa xaalka wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan dhacdooyinka gobolka Sanaag laakiin bal wax yar waxa ay la daawataan qaar kamid ah ismada dhaqanka Puntland oo Boosaaso culays xoog leh ka saaraya Siciid Cabdullaahi Dani iyagoo leh halkaasi waxaan ka dhisaynaa maamul loo dhan yahay oo Puntland ah bal la daawada ismada nugaaleed intii ishashay iyadoo dhulka jilaal adag ka jiro oo aan la dhamayn intii ishashay waxaanu go'aan ku gaarnay inaanu ayidno baaqii ismada bari in la isu yimaado oo la tashado oo wixii jiraba laga wada hadlo baaqaas waanu soo dhaweynay si mug leh waana ayidnay waana ka raallinahay aanu baaqaas intaas baanu saaka isugu nimi intayadii isheshay oo nugaal salaadiinteedii iska heshay iyadoo waqtiga dhacay dartiisa aan la dhamayn oo lagu kala maqan yahay baadiyaha oo jiilaaladkii ka dhacay oo xoolo loo hayaaminayo xagga maaragta galbeedka marka intaasaan saaka halakan isugu nimi warka iyagu saaka intaas iyo ismadii ishelay qoraalkoodii uu ku kooban yahay ismada nugaaleed intii isheshay iyadoo dhulka jilaal adag ka jiro oo aan la dhamayn intii isheshay waxaanu go'aan ku gaarnay inaanu ayidno baaqii ismada bari in la isu yimaado oo la tashado oo wixii jiraba laga wada hadlo
baaqaas waanu soo dhoweynay si mug leh waana ayidnay waana ka raallinahay aanu baaqaas intaas baanu saaka isugu nimi intayadii is heshay oo nugaal salaadiinteedii iska heshay iyadoo wakhtiga dhacay dartiis aan la dhammayn oo lagu kala maqan yahay baadiyaha oo jiilaal adki ka dhacay oo xoolo loo hayaaminayo